odayaashii iyo dhalinyarada waxay ka hadleen inay jirto dhibaato fara badan oo magaaladan iyo meel kale oo countiga ayna taalo. horta waxaa dhibaatada naga qaadi karaa inaan ilaahay u noqono oo aan tooba keenno, maadaama dowladda countiga ha noqoto ama national government ha noqoto waxay qaban tahay waa iska yarta. marka waxay keli oo nabadbaadinayo waxaa waaye waa inaan ilaahay u noqono, aan tooba keenno, ilaahay aan ku caranno, aan roob doonno waaye. insha allahu waxaan rajo qabnaa ilaahay inuu naxariistiis na siiyo. arrimihii school fees waa la socotiin waqtiga electionkii intaanan joognay intaanan istaagay waxaan idin ballan ka qaaday insha allahu January marka la gaaro dowladda Korbes inay bixin doonto school fees. waxaan rabaa inaan idin hagaajiyo arrintaas hadda diyaar waaye. shalay ay meeting nagu dambeysay principals dhanaan la shirnay, go-aanaan gaarnay insha allahu January haddaa la gaaro oo ardaytan oo secondary school oo dowladda ku jirta day iyo boarding ahaato inay county government insha allahu ay bixin doonto school fees. arrintii NDNA honorable Faisal ka hadlay oo cash transfer run waaye waa la fadhiistay ninkii u weyn oo Nairobi joogo. arrintii waa siduu asigu sheegay ilaa 1,040 qof oo ay list lagama bixin laakiin laga istaajiyey lacagtii ay heli jireen bish kasta. arrintii dhibka waxay keentay waxay ku arkeen dad oo dowladda u shaqeeyo oo dowladdii county ahaato ama dowladdii national oo listi ku jira. lacagtana waxaa loo talagalay dadka miskiin soo ma ahayn, dad saboolaa loo talagalay. nin shaqaala county u shaqeeyo ama national government u shaqeeyo hadduu bishii qaato 3,000 waa ceeb soo maaha. marka arrintii horta dhibka taas ay keentay. marka waxaan isku heshiinay inay lacagta lasoo daayo, laakiin baaritaan ay sameeyaan oo dadkii ay sheegeen inay dowladdu u shaqeeyaan ay kala saaraan. dhibkiina hay waxaa waaye reer Mandheera haddaan ahay dadkii sabool oo nolol uma naxariisno. raashinka haddaa la bixiyo dadkii oog qabaa booba waad la socotiin. raashinka markaan bixinayn dhalinyaro iyo dad kale oo coog leh raashinka dadka boobayaan. taasna waa ran oo nasiib darro waaye. waqtiga xunaan joognaa waa waqtigana laga rabo inaan waxaan haysanno aan u deeqno dadka jiraankayn, laakiin tan aan u keenno haddaa laga boobo waa nasiib darra. marka waxaa iga codsiya waqtigaan ku jiro waa waqtiga caadi maaha, waa waqtiga hore oo nin walbaba raashin inaan rabo inuu qaato ma aha. dadku ay dhibaysan yihiin, dowladdina meel kastana ma gaari karto. waxaan rabnaa markii dad lasoo qoray inuu dadka daran ogoomaha dadka waayeel ah naafafka meesha joogaan lasoo qoro aan tusno inaan dadkaan aan wax u quuri karno. magi nin walbaba duu rabo Mandheera dhan raashinka lama deeqi karo. marka taas insha allahu arrintii NDNA waa diyaar waaye.